Furashada Kashmir. Qofkii u horeeyay ee Kashmir furtay wuxuu ahaa Maxamuud bin Sabaktakiin. Bilaadu Sind qofkii u horeeyay oo furtay wuxuu ahaa Maxamed bin Abul Qaasim. Sida hore uga soo sheekeynay, Bilaadu Sind waxaa maanta loo yaqaanaa Bakistaan. Maxamuud bin Sabaktakiin wuxuu ahaa wiilka yar u dhalay suldaanka dowladda Ghaznawiyiinta oo xukumi jirtay Bakistaan xilligaas. Wuxuu dhashay 971 miilaadiga. Markuu aabihiis dhintay kadib, wuxuu la wareegay xukunka dowladda. Riyadiisana waxay ahayd inuu furto India. Sidaas darteed, wuxuu heshiisyo la galay dowladaha iyo xisbiyada ka agdhow si uu u abaaro India xooggiisana u saaro. Muddo 30 sano ah, sanad walba wuxuu qaadi jiray dagaal oo isagoo hogaaminayo magaalo ayuuna u furin jiray. Maadaama India ay tahay waddan aad u weyn oo hal mar inta lagu duulo la furan karin. Magaalooyinkii uu furtay oo ilaa hadda dadka degan ay yihiin Muslimiin waxaa ka mid ah Punjab, Multan iyo Kashmir. Maadaama Kashmir ay tahay dhulkeeda dhul aan isla simanayn oo buuro u badan, 3 jeer uu isku dayay inuu furto, laakiin way u suurtageli weysay cimilada iyo dhulka mashaakil la xiriira awgood. Markii afraad uu ku guuleystay, taariikhda markay ku aadaneyd isla maanta oo kale 16 Ramadaan 409 Hijriga markay mareysay. Ugu dambeyn, Kashmir waxaa lagu soo daray dalalka Islaamka 1000 sano kadib ilaa maantana dadkeeda waa Muslimiin. Waxa ugu badan uu xoogga u saaray waxay ahayd inuu asnaamta burburiyo dadka oo fiirsanayo, si uu u tusiyo dadka in waxaan dhagaxyo yihiin aysan waxba anfacaynin, waxna dhibi karin. Waxa kugu soo dhacaya marka Nabi Ibraahim calayhi salaam markuu asnaamta u jajabinayay, sidoo kale Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu Maka galay asnaamtii uu burburiyay, barnaamijkan ay soo islaameen. Haddaba reer Hindiya sidee u arkeen dagaalkan uu Maxamuud ku soo qaaday? Reer Hindiya dagaalkan Maxamuud uu ku soo qaaday waxay u arkeen in ilaahooda oo lagu magacaabo Shiva oo u xanaaqsan yahay, sidaas darteedna ay musiibadan ugu dhacayso. Maxamuud markuu warkaas maqlay wuxuu dhahay, yaa waaye ilaaha Shiva. Waxaa loo sheegay inuu yahay ilaaha reer Hindiya ayna aaminsan yihiin inuu wax nooleeyo waxna dilo, arwaaxdana gacantiisa ay ku jirto. Ilaahaas wuxuu lahaa 1000 nin oo asaga u khidmeeya iyo 500 oo dumar ah oo u ciyaaraan. Isla markiiba Maxamuud wuxuu diyaarsaday 40,000 oo ciidan ah, wuxuuna tagay magaalada Somnar oo sanam ka taagnaa. Waxaa la yaab ku noqotay Maxamuud iyo ciidankiisii markay galeen magaalada wax dagaal ah maysan gelin. Waxay arkeen dadkii magaalada oo isku soo baxay si ay u daawadaan qaabka ilaahooda Shiva u cadaabi doono nimankan. Muslimiintana waxay u ahayd furitaankii ugu fududaa oo waxay soo galeen magaalo dadkeeda ay is dhiibeen. Kadib Muslimiinta markay si nabad ah ku soo galeen magaalada, reer Hindiya waxaa ku dhacay fajac iyo argagax, waxayna bilaabeen inay dagaalamaan ayagoo ooynaya, badankoodana waa la laayay. Markuu u soo jeestay inuu sanamka burburiyo, waxaa ku soo baxay culimadoodii waxayna ku dhaheen, waxaan ku siinaynaa dahabkeena oo Ilaahay ugu dhawaan jirnay oo dhan, hanaga jajabin Ilaaheena. Maxamuudna asxaabtiisa waxay kula taliyeen inuu dahabka soo qaato sanamkoodana u dhaafo. Laakiin Maxamuud wuu diiday, wuxuuna u sheegay ujeedada ay u soo baxeen inay tahay inay u caddeeyaan ummadda in asnaamta aysan waxba ahayn, Ilaaha waaxidka ahna uu yahay Alle keligiis. Wuxuu dhahay, maalinka qiyaamo waxaa jeclahay in laygu yeero kii asnaamta burburin jirayoo inta laygu yeeri lahaa kii lacagta soo aruursaday. Dhacdadaas kadib, dad badan ayaa soo islaamay. Maantana in ka badan 1000 sano kadib, waxaa ku nool Hindiya in ka badan 200 milyan oo Muslimiin.